wadooyinku waa udubdhexaadka isku xidha tuulo to tuulo degmo to degmo magaalo to magaalo gobol to gobol wadan to wadan hase yeeshee wadooyinka halbowlayaasha ah ee isku xidha dhammaan caalamka oo dhan ayaan marnaba haba yaraatee laga maarmi karin muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ku soo badanayay magaalada Hargaysa ahna caasimadda Somaliland wadooyinka halbowlayaasha oo jajabkeedu maalinba maalinta ka dambaysa uu isu soo tarayo degmooyinka ku yaala magaalada Hargaysa waxa uu kala goosho maalintiiba in ka badan 5,000 oo gaari hase yeeshee waxay ahayd in bilicdeedu ay sareyso caasimadda Hargaysa maadaama ay tahay wadnihii laga maamulayay dalkani Somaliland wadooyinka Jajabay waxa ay burbur ballaaran u geysteen gawaadhida wadooyinkaasi maray waxaanu wax ka weydiinay dirawalayaasha sida dhayliga u mara wadooyinka ku yaala magaalada Hargaysa waxay sheegeen burburka wadooyinkaasi in ay kala kulmaan caqabado aad u fara badan waxaana hadaladoodii kamid ahaa caqabadahan kala kulano wallahi waxa weeyaan horta marka wado qof rakaab oo kale oo xanuunsanaya ama qof oo kale daagilka iyo shakaladooda gaarigo wax naga noqda aad boorta taa ugu dhiban maadaama maxaa taksiilayaashii waayo wadooyinkii wada hagaagsan ma jirto wadooyinka Somaliland toga hagaagsan oo tan idaacadoon iyo tan airportka ama tan madaxtooyada eriyada mooyaane jigjiga yar intan boqol ka tag waxa way wada burbursayn wala muxuu ahaayay wada xumo marka waxaan ka codsanaa maayarka inuu wadooyinka dibaheen lagu dhaqaaqo ama dibaheen lagu sameeyo way dhaqaalaha ugu fara badan ee muxuu ahaayay dakhliga wuxuu ka soo kala waa gaadiidka wada cashuur ban laga guraa oo anaga liisankayga bal cashuura gaariga bal cashuurta meel ay marta laga garanayo koodhe marka dawladda waxaan ka codsanaynaa wadooyinkan ay eegtade kale way maraan iyaguba hase yeeshee waxaanu wax ka weydiinay injineerada gawaadhida sameeya oo sheegay inuu burbur ballaaran ka soo gaadhay wadooyinkaasi Jajabay gawaadhida waxaana hadaladoodii kamid ahaa iyagoo arintaasi ka hadlaya way jiraan baabuur badan oo saas kale aan ka shaqeyno kawde laakiin waxaan jeclaan lahaa anigu wadooyinka imka hareerahooga kale baabuurtaba waxa ka daran odayga iyo waayeelka iyo islaamaha daadeer la oo wadooyinka hareerahayga wadada marka kala dheer tahay marayo ku kufaya darkaysa had iyo goor Soomaad garan xukuumadda mar walba in ay la saaro kuma qurux badna iska wax u qabso kaliya lagu dhisi karaa imka wadooyinka hadii dadweynuhu xukuumadda wax la qabanayso Soomaad garan oray Soomaalidu lagu maamaada far kaliya fool ma dhaqdo Soomaad garan marmarka imka dalka imka lagu sameeyo kale waa la dhigi karaa meelaha biyo marista wadooyinka biyuhu ay jarayaan shirta ruuxaantii gawaari ama soo dhacay ama gidaar galay ama si kale xun noqday ama jiinoodu istaagan xagga la noogu keeno qaar dadkii lahaa inuu hagaajino iyo qaar anagu dib aanu furfurno oo isbaadbaad ahaan u iibino ruuxaantii anaga wax dibadda nooga maadaama jiraan waxa dalka wax ku noqday baan dib hagaajinaa gaari ama istaagay ama jiinku xumaaday man bodigiisa dib u furfurnaa bilicda magaalada hagaajinta wadooyinka dhismaha dhammaan waxyaabahaasi oo dhan waxa hagaajiyay dawladda hoose iyo maayarka magaalada Hargaysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydidi Solterko oo isagu tunka saartay bilicda magaalada Hargaysa sidii uu hagaajin lahaa si kastaba aatee maayarka magaalada Hargaysa ayaa waxa ay ka dhaga fureysteen baaqa ka soo yeedhay degmooyinka magaalada Hargaysa waati degmo ka tirsan degmooyinka ku yaala magaalada Hargaysa markii wax qabad ay ka waayeen dawladda hoose iyo maayarka magaalada Hargaysa ay magacawdeen maayar iyo maayar ku xigeen si ay wax ugu qabtaan degmadaasi dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargaysa waxa laga qaadaa cashuurtaasi oo ah in wax lagu qabto magaaladan Hargaysa si cashuurtaasi imika waxba laguma qaban shicibka ku dhaqan magaalada Hargaysa ayaanu wax ka weydiinay wadooyinkaasi burburay ayagoo dhaliilo badan u soo jeediyay dawladda hoose iyo maayarka caasimadda Hargaysa waxa hadaladoodii kamid ahaa ayagoo arintaasi ka hadlayana jaamac daahir cilmiyow muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ku soo badanaya caasimadda Somaliland wadooyinka oo burbura arintaasi maxaa sababtay maxaad u diraysaa dawladda hoose adeer waxa sababay horta qofku inuu aqoon leeyahay weyn habka wadooyinka iyo bal dhibta ay yeeshaan marka laga camanayo in la sameeyo waxa weeyaan wadooyinka gudaha waxa ku shaqada dawladda hoose ee caasimadaha amba kuwa kala hadaan ama tan Hargaysa hadaan wixii outside ka ana hawlaha guud iyo waxa ku shaqalahan jiray marka aynu imika dawladda hoose ka hadlayno dhowr sababood baa adeerkeeni kara waxaan mid weeyaan caasimadda markii aynu soo galay mala adigu bariga wad yarayde
waxay ka koobnayd 4 xaafadood oo qura iyo magaalada dhan 12 waddo oo qura oo ay ku jiraan labadii xaafadood ee bilar raray wadooyinka barigaa jiray waxaan waddo quroo laami ahayd adeer kumay jirin tan center oo Hargaysa maraysa iyo taayare idaacadda tagta iyo tul oran jiray 5 maylka oo madaarka tagi jirtay sababa keeni karo waxa weyn magaaladii way ballaaratay population-kiina adeer wuu batay oo tiro batay waxa weyn anagu dawladda haasahan waxaanu ka horeynaa statistics-ka tiro koobka guryaha iyo dadka amba extension-ka ay qaadatay magaaladu waxay u kala baxday adeer 8 xaafadood imisa ku kordhay 4 baa ku kordhay wadooyinkii caasimaduna ciiday ka bateen haddaba adeer marka laga hadlayo waddo qura matalan samaynteeda lacag aad u fara badan baa adeer ku baxda contribution-kan dadka ay laga ururiyo waa wax yar waxa la yiraahdaa boqolkiiba 30 inta kale oo dhan dawladda hoose ayaa laga rabaa marka for example marka waddo la diyaarinayo waxa la samaynayaa adeer intaasoo kun oo jay ah warshad maynaan lahayn ridiqda waxa weeyaan intaasoo jay oo kala kaana la doonaya waxa weeyaan maynaan lahayn qalabkan furaashka lagu dhigo maynaan lahayn qalab iyo micidaad wax qaada lacagta ku baxaysay sababteeda adeer dib u yar dhigtay ilaa alaankan lacagta waa la bixiyaa oo dawlad shaynu ka soo iibsanay waxa weeyaan shidaalkii baa dheer halkii lagu keydinay shaqaalihii baa dheer waxa dheer shaqaalaha mushaharkiisii oo dhan sababta labaad waxa weeyaan adeer waxa weeyaan markii hore tirada dawladda hoose shaqaalaha ka shaqeeya wax yar bay ahaayeen oo kooban maanta ardaydii jaamacadaha ka baxay hablihii ka baxay waxa mushaar ka qaata ku dhowaad 2200 horta dhageyso oo qaarna ay jaamacad yihiin qaarna ay GC haystaan qaarna waxaasoo kale ay haystaan imika waqtigan taaganahay adeer geerashiina waa la diyaar gareeyay iyo jaygu markuu sidaa loo raseeyo wuxuu dhaafayaa fooqa dahabshil oo dhowr nooc ah daamirkii oo dhan adeer uu yaala waxa weeyaan shaqaalaha iyo tamartii ku baxaysay 4 waddo ee centerka Hargaysa iyo kuwa kale iguna north iyo south u kala socda ayaa imika dhawaan la bilaabaya badan oo loo kala qaaday leedahay marka ugu horeysa waa inaan si academy aqoon ay ku jirtaan uga jawaabnaa Somaliland dhaqaalaha ka soo baxa dawladaha hoose gaar ahaan caasimaddu wuxuu koonfurgarayn karaa haddii si wanaagsan loo maamulo dhammaan baahiyaha asaasiga ay ugu horeeyaan wadooyinku bilicda magaaladu waa waxa kaliya loo doortay dawladda hoose ma jirto magaalo madax xashiishku saan u yaala meel walba wadnihii magaaladan jooga markaas xashiish baan arkaya ma arkayo ubaxaan moogtay maxaan la ku teedsan mala isbaarooyinku kala hagitaankii la sameeyey waqtigii cigaal yaa la sameeyey moogtay waqtigii daahir yaal ay joogeen iyo waxa jiray moogtay maxaan la baaladii kala hagayay gaariyaasha maantana aynu joogno 2018kiina caasimadeena waxaan leeyahay 20kii sanado ugu dambeeyay ee la doortay raggan badan ee dhowr iyo 20kanina waanu dib aynu u noqonay hore umaynu socon xagga dimuqraadiyadda hore aynu u soconno laakiin doorashadii dawladaha hoose aynu dooranay aad baynu ugu khasaarnay dadkuna wax fikira kama haysan waxayna ma ogtay markaas ku khaldamaan qabiilka iyo xisbiga ishuwan qof kasta wuxuu doonay inuu qof ku yeesho isagoo qabiil ahaan u eegaya laakiin ma eegayo tayada iyo aqoon tolay way jirtaa wadooyinka burburay iyo maxay tolay dayacan ka muuqda caasimadda maadaama aynu caasimadii tahay oo caasimadii Soomaaliland ay tahay caasimadda waxa lagu yaqaanaa in infrastructure laga shaqeeyo in maxay tolay wadooyinkada la hagaajiyo anigu waxaan u arkaa inay dawladda doorka ay ku lahayd dawladda hoose doorka ay ku lahayd ay gabtay maxay tolay anigu waxaan u arkaa maxay tolay taasna inay sabab tahay dawladda sare waa haddii dawladda sare way hagaajin lahayd waxa hagaagi lahaa dawladda hoose way hagaagi lahayd maadaama marka lama yaabo maayo imika dad wadooyinka caasimadda ay eegto ilaahay buu ku keenaya haddana caasimadda sheeganaysa maxay tolay waad arkaysaa oo marka aad magaalada indhaynda ku samayso aad saa eegto wadooyinkooda burbureen meel kasta qashin baa yaala caasimadda biliceeda way dhimatay waxaana waxa u sababa maxay tolay dawladda hoose nin walba la soo dooranaya reer baa lagu soo dooranaya meel baa la fadhiisanaya dabadna maxay tolay wuu iska cunayaa markuu 10 beri jooga arkaysaa isagoo markuu iska balaaqay oo aad magaranaysaa xulay dawladda soo doono cid hadduu heli lahaa cid la xisaabtamaysa oo maxay tolay dabagelaysa
ومحيي تولي de waxaan uu shaqadan qaranka u hayo ku dabagelayso ku gaar garanaysa anu waxaan aaminsanahay inuu intaa iyo in ka badan ba dadaal sameyn lahaa maayarkii ugu taagta daraa ee ka dhacay Soomaaliland weeye ilaa xilliga Cawl Ilma Cabdalle waxay maraysaa dowladda hoose xaalad laga yaqiiqsado oo taagan imika inay xaafadda lagu sheegay daraa maayar cusub aan magacaabina wadooyinka burburay waxay naga nafiyo maalba dadkii inta khasaare noo geysteen baa ka badan burburkaasina wax jira weeye burburka waxa sababay dadka la doortay oo dad damiirkooda iimaankii aad u hooseeyo waxa la sheegayaa in xildhibaanada ay doornay deegaanka in laba mooyaane inta kale khamriga cabaan qof khamri cabaa ummadda waxa uu qaban kar maayo markaas ummaddu waxa weyn akhlaaqiyan dadkii ugu akhlaaqda darnaa ayaa meesha la fariisiyay midda kale la xisaabtan dadkan cid ba ka sareysa dowladda dhaxa ka sareysa cid ka sareyso la xisaabtanta haddii iyagu damiirkooda iimaankii qaban waayay cid la xisaabtanta ayaan jirin oo qabata qabyaaladna way jirtaa oo ninka aad dooratay adeerkaayi inaad wax ka sheegtid oo aad khaladkiisa u sheegtid waxa ku diiday qabyaaladda waxay noqotay xanuunka koobaad ee dadkeena aafeeyey aan u dooran karin qofkii saxda ahaa bosiishi saxda ah aan ugu dooran karin ناصر عبد القادر عبد الوهاب ناصر تلاسمي يولي بأحمد جيتي تلفزيون كعالمي بدعس 24 تي في مقالة هرقيسة